السلام عليكم وأدكم أصلا دعوشة فيديوغا كسر دو برنامجك نقو حدك. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. magacay waa Yuusuf Sakeen maxaad u malaynaysaa farqiga u dhaxeeya dadka guusha gaara iyo dadka guuldareysta dadka farxadda ku nool iyo dadka murugta iyo rafaadka ku nool maxaa u malaynaysaa farqiga u dhaxeeya inuu yahay farqiga u dhaxeeya dadkaas dadka mar walba hela waxa ay doonayaan iyo dadka mar walba ka daba orda waxa ay doonayaan oo helin wax kala ma ahan waxay tahay sida u fikiraan qaabka u fikiraan bas waa intaas oo kaliya ogow fikirkeena wuxuu xadidayaa qofka inuu noqonayno qof kastoo naga mid ah wuxuu noqonayaa sida uu u fikiro waxaad ka fikirtid baad noqonaysaa waxaad inta badan ka fikirtid baad noqonaysaa waayo fiir mid ogow wax walba aad ka fikirtid way ku badanayaan way ku sii badanayaan waa u sii dhawaanaysaa mar walba ilaa aad ka aragtid oo hortaada ka yimaadaan saadaradeeda fikirka aad iyo aad ayuu muhiim u yahay dadka guusha gaarana midaas aad ay u fahmeen saadaradeed aad bay u ilaaliyaan waxa ay ka fikirayaan ay u ilaaliyaan mana ogolaanayaan in maskaxdooda ay gasho oo ay ka fikiraan waxaysan ayagu rabin waxaysan ayagu doonayn balse waxay ka fikiraan waxay rabaan guusha waxay ka fikiraan jacaylka waxay ka fikiraan nabadda horumarka waxaas oo dhan wanaag ay ka fikiraan ay kama fikiraan dagaalka colaada guuldarada waxyaabaha kalsooni darada kama fikiraan mar walba waxay sawirtaan oo maskaxdooda gashtaan oo maalin walba ay ku soo kacaan oo ay ku saxdaan fikirkoodana uu ku dhisan yahay waxa wanaagsan fikirkooda mar walba waa fikir togan waa fikir mar walba ku dhisan waxyaabaha ay doonayaan ma ahan waxyaabaha aysan rabin waa meeshan si fiican u fiir farqi weyn ayaa u dhaxeeya ina aniga aan ka fikiro wax aan doonaynin iyo inaan ka fikiro wax aan jecelahay aniga ma doonayo kalsooni daro saadaradeeda kama fikirayo kalsooni daro haddaan iraahdo mar walba aniga waxaan ahay qof aanan kalsooni lahayn kuma kalsooni nafsadeeda dadku iguma kalsoona midaas waxaan keensanayaa aqligayga hoose waxaan leeyahay qaado midaas macluumaadkaas ayaan ku quudinaya macluumaadkaas ayaan ku shubaya oo ku programeynaya saadaradeed waxaan arkaya anigoo sidaas kalsooni la-aan anigoo ah maxaa yeelay way aniga ayaa mar walba ka hadlaba inaan kalsooni la-aan ahay aniga ayaa mar walba ka hadlaba inaan dadku jeclaan in dadka hortooda ka hadli kareen soo ma jeedid haddaba maxaa kula haboon maxaa la gudboon qofkeena si uu guusha u gaaro in mar walba guusha sawirto inuu mar walba guusha ka hadlo inuu mar walba guusha u saadalisto dadka qaar waxay dhahaan adiga iyo mar walba waxaad ka hadashaa un guusha maxaa kugu dhacay waa guusha waxaan jeclahay ma doonay waxaan jeclay inaan ka fikiro aniga waxaan rabo ayaan ka fikiraa waxa aniga aanan rabin kama fikiro guush waan jeclahay saadaradda iyadun baan ka hadla saadaradda iyadun baan soo bandhiga waayo waxaan rabaa in ayada ii badato in ayada aan helo ayaan rabaa waxaan rabana waa inaan sheegta aniga maskaxdayda waa inaan ku quudiyaa inaan ku fikiraa nabadda ayaan jecelahay ayada baan ka hadlaa jecel ayaan jecelahay isaga baan ka hadlay jecelka saan jecel u helo nolosheeda u noqoto nolol ku dhisan jecel kalsoonida baan ka hadlaa waayo kalsoonida waan jecelahay midaas ayaan rabaa nolosheeda inaan ku beero waxaan doonayaa inaan wado qof nafsadiisa ku kalsoon soomaa haddaba waa inaan kalsoonida nafsadeeda ku abuuraa inaan ku beeraa nafsadeeda kalsoonidaas markaas waan helayaa haddaba waxay tahay arrintu iyadoo kooban wax walba ood ku fikirtid waad noqonaysaa maanta waxaad joogtaa meesha uu ku keenay fikirkaaga maanta waxaad joogtaa xaaladda haddii aadan ku raalli ku ahayn ogow wax kale ma ahan xaaladdaas waxaa ku keenay fikirkaaga waxaa meesha ku timid aad joogtay maanta saa u fikiraysa fikirka ayaa ku keenay halkan beri meeshaad tegaysidna fikirka unbaa ku geenaya waxaa ku geenaya waxaad maanta ka fikiraysid haddaad ka fikiraysid inaad noqonaysid qof horumarsan qof xidig ah qof guul gaara markaas wuu ku geenaya fikirka meeshaas ayaad tegaysaa haddaad ku fikiraysid qof aan meelba tegaynin qof aan guusha gaaraynin saas unba ahaanaysaa meesha unbaa dhex fadhina weligaa kalsooni ma helaysid guulna ma helaysid farxadna ma helaysid way kooban tahay arrintu waxaynu nahay saynu u fikirno waxaynu noqonaynaa saynu u fikirno aada u ilaali fikirkaaga waa fikirkaaga wuxuu isku bedelayaa ficil aada u ilaali ficilkaaga waa ficilkaaga wuxuu isku bedelayaa caado aada u ilaali caadadaada waa caadadaada waxay xadidaysaa qofka aada noqon doontid ii sheeg saa u fikirtid waxaan kuu sheegayaa qofka aada noqon doontid mustaqbalka hore ayaan kaaga sheegayaa qof walba waxaan ku garanaya sida u fikir qof haddaa aragtid mar walba waxa aan ficnayn ka fikira waxaan ficnayn ka hadla waa qof saasa noloshiisu waa saas mar walba ka fikira faqriga iyo gaajada iyo dagaalka ka fikira saas unbuu ku dhex jiraya weligiisa ma helayo waxaas waayo waxaas unbuu ku walwalsan yahay waxaas unbuu mar walba maskaxdiisa ku jiraan taas unbuu dhex fadhinaya laakiin itusi qof fikir wanaagsan leh qof si fiican waxa u arka qof arka bari in rajo fiican ku jirto
mustaqbalka inuu wanaagsan yahay, mustaqbalka inuu noqonayo qofka uu doonayo, inuu noqonayo xidig, inuu noqonayo qof guuleysta. qofkaasna sidaas unbuu ahaanaya mustaqbalka. meeshaas hadda uu sawiranayo ayuu tegayaa, fikirkiisa meesha hadda uu ku dhisan yahay ayuu noqonayaa. aada u ilaali waxa aad ku fikirtid, waayo waxaad noqonaysaa ugu dambaystii waxaad hadda ku fikirtid. waad mahadsan tahay. افرض وجودك في الحياة وكن كما وقع المطر، وانثر حروفك في السماء نورا كما ضوء القمر. بالعزم هيا نمضي سويا، نسمو ونرقى فوق الثريا. لا تقل لوحدي أو كيف السبيل، أنت بالتحدي تصنع المستحيل.